kusoo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kuugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha May sanada 2020 kusoo dhawaada warka subaxnimo ee shabakada Sirta Media Sirta Media xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa qoraalkii joogtada ahaa oo u gudbin jira xubnaha golaha ammaanka ee arrimaha Soomaaliya maanta u gudbiyay golaha Antonio Guterres ayaa si caro ku jirto ugu sheegay golaha ammaanka inaan caalamka marnaba ogolaan doonin in Soomaaliya dib loogu celiyo xaaladii adkeed oo ay ka soo gudubtay ee dagaalada sokeeye sidoo kale wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr James Swan oo isna khudbad dulmar ah ku sheegay in ay nasiib xumo tahay in xal loo waayo wada hadalka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe hadalka uu soo jeediyay Antonio Guterres iyo wakiilkiisa gaarka ayaa ku soo aadaya iyadoo golaha ammaanka ay shalay ansixiyeen qaraarkii dib loogu cusboonaysiinayo joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya hadalkii cuslaa ee lagu canaantay farmaajo iyo kheyra ayaa waxa uu hordhac u yahay go'aan dabiiqada bishan ay qaramada midoobay ku dhawaaqi doonto kaas oo awoodda si dadban ugala wareegaya farmaajo iyo kheyre isla markaana lala simayo dowlad goboleedyada waxaa muuqatay in beesha caalamka ay go'aan wada jir ah ka qaateen xaaladda cakiran ee ka sii daraysa ka jirta dalka Soomaaliya dhanka kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu si maldahan uga hadlay waxa sababay in Salaad Cali Jeele iyo xubno kale oo habiye ah lagu dhabarjibiyo markii ay soo hadlaan madaxdii hore ee Soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa u qornaa markastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ee xukuumadda dhaliilaan ama madaxweyne Farmaajo u soo jeediyaan arrimo ugu baahan jawaab waxa si halhaleela ugu jawaaba siyaasiyiin ay isku heeb yihiin sida Salaad Cali Jeele iyo kuwa kale marka waxaan isweydiiyay waxaan dheef ka badan ee maxaa ku qasbaya in siyaasiyiintaasi ay alalaas iyo ammaan ka daba sidaan madaxweyne Farmaajo walaalahoodna maalin walba la daba joogaan xeebeen iyo cambaareen aan loo meeldayin Soomaalidu waxay ku maamaadaa habeenkii waxa kortaga fogeeya qofkii og in waagu baryayo kulay anaga ayaa qabashadiina leh ee walaalayaal wax isku lahara ee haldoorkiinana hadimaha iyo hadaamaha aad ku tuureysaan ka daaya waana la doogayaan la dacaroon dhanka kale iyadoo ay sii badatay tuhunka laga qabo in madaxweyne Farmaajo uu heshiis hoose la gaaray dhigiisa Kenya in kiiska dacwadda badda ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya lagu dhameeyay qaab isafgarad labada dhinac ayaa haddana waxaa jira qodobo dhowr ah oo sii xoojinaya shakiga laga qabo Farmaajo qodobada shakiga badan dhaliya ayaa waxaa ka mid ah sababta ka dambaysa in la bedelo saddexdii mas'uul ee Soomaaliya wakiilka uga ahaa kiiska badda iyadoo aan la shaacinin ama ilaa hadda aan la ogeyn shakhsiyaadka lagu bedelay safiirka midowga Yurub iyo qareenada Muna Sharman hadal uu saxaafadda ka sheegay safiirka Mareykanka u fadhiya Kenya wuxuu si aan gambasho lahayn u sheegay in kiiska dacwadda Soomaaliya Kenya lagu dhameynayo wada hadal soo dhaxgalka IGAD Ethiopia iyo ururka midowga Afrika kuwaas oo dhammaan qabo fikirka ah in kiiska lagu dhameeyo qaab wada hadal hadalkii ay barteeda Twitter-ka soo dhigtay wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma kuna sheegtay in madaxweyne Farmaajo aqbalay in kiiska badda lagu dhameeyo wada hadal iyadoo aan maxkamad la tagin heshiis ay la gashay wasaaradda cadaaladda Soomaaliya dhigeeda Kenya heshiiskaas oo lagu sheegay in Kenya ay ka caawinayso Soomaaliya horumarinta nidaaminta sharciga iyo garsoorka fila Soomaaliya oo aan wax falcelin ah ka soo saarin dhammaan qodobada aan soo sheegnay madaxweyne Farmaajo ayaa laga qabaa tuhun balaaran waxaana maalin ka hor shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo banaanka soo dhigay qodobo looga fadhiyay madaxweyne Farmaajo inuu jawaab ka bixiyo walow ila wareed ka tirsan fila Soomaaliya ay inoo xaqiijiyeen in ay go'aan ku qaateen in aan laga jawaabin su'aalaha ka yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa taa bedelkeeda falcelin weyn ka sameeyay shacabka Soomaaliyeed iyagoona ku tilmaamay qaarkood in dalka si degdeg ah looga qabto madaxweyne Farmaajo isla markaana ay qaar kale sheegeen in haddii uu heshiis ka gaaray kiiska badda maxkamad la horkeeno madaxweyne Farmaajo dhanka kale ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay kulanka golaha ammaanka oo ka yeeshay arrimaha Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay wada hadallo u socdaan dowladaha Soomaaliya iyo Somaliland James Swan ayaa sheegay in wada hadallada ay yihiin kuwa heer sare ah isla markaana labada dhinac ay leeyihiin xiriir joogto ah waxa uu intaasi ku daray in labada dhinacba ay doonayaan in la sii horumariyo wada xaajoojyada markay noqotay xiriirka Soomaaliya iyo Somaliland waxaana dhiirigelinayaa in wada hadallo heer sare ah ay socdaan isla markaana labada dhinac ay muujinayaan in ay ka go'an tahay in ay joogteeyaan xiriirka ayna sii raadiyaan wada xaajoojyo dheeraad ah ayuu yiri James Swan ma uusan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer mana cad qaabkay u socdaan wada hadallada iyo mas'uuliyiinta ku lugta leh intaba baahda warbaahinta oo la xiriirtay labada dhinac way diideen inay arintani ka hadlaan dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ayaa la rumaysan yahay inay isku soo dhawaanayaan wixii ka dambeeyay markii madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi ay ku kulmeen xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ee magaalada Addis Ababa 11kii bishii Febraayo ee sanadkani kulankaasi ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo tan iyo markii uu xafiiska yimid ay aad isugu dhawaayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan inoo soo gaaray haddii ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa dib u dhigaysa ayagoo rogaal celisa Sirta Media
sirta media saddexdii sano iyo barkii uu wadanka ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre marnaba kama hadlin dacwadda badda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu qaaday talaabo kasta oo uga baxsan kara inuu arrimahaasi si toos ah uga hadlo amaba uu la qaybsado dareenkiisa shacabka Soomaaliyeed si aan marnaba looga soo hadal qaadin dacwadda u dhaxaysa labada dal waxa uu arrintaasi iska hor dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar isaga ayaa ka hadla shirarkana ka qayb gala dhanka kale Xasan Cali Khayre ayaa dhankiisa waxa uu xiriir toos ah la furtay dowladda Kenya xafiiska ra'iisul wasaare Khayre ayaa gabi ahaanba waxa shaqooyinka ugu badan ka haya muwaadiniin Soomaali Kenyana kuwaas oo gacanta ku haya sirta Soomaaliya isla markaana u fududeeyay wada hadalka gaarka ah ee kala dhaxeeya dalka Kenya ma ahan shakhsi ka xishooda inuu iibiyo danaha Soomaaliya haddii uu ka gaarayo hadafkiisa siyaasadeed haddii aad u baahan tahay dhaqanka khiyaanada ee uu ku caanbaxay ra'iisul wasaare Khayre dib u milicsa taariikhdiisa kooban inta uusan noqon ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa fikirka noocan ah uu kala dhaxeeya madaxweynihii hore ee dawladdii ku meel gaarka ahayd mudane Shariif Sheekh Axmed oo isaga aan marnaba soo hadal qaadin dacwadda badda ee Kenya waxa uu labadii sano ee la soo dhaafay safar joogto ah ku tagay dalka Kenya halkaas oo kulamo qarsoodi ah uu kula qaatay dawladda Kenya waxa labadaas shakhsi ku weheliyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isaga hore looga eedeeyay inuu iibsaday badda Soomaaliya dhibka taaganna xilligan uu isaga mas'uul ka yahay ma maqlaysid isagoo marnaba soo hadal qaadaya arrimaha dacwadda badda ee Soomaaliya laakiin habeen iyo maalin waxa uu dhex taagan yahay baraha bulshada isaga oo ka hadlaya arrimo aan qiimo weyn ugu fadhin ummadda Soomaaliyeed saddexdan shakhsi ayaa qaba hal fikir oo ku saabsan dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhaxaysa dalka Kenya laakiin waa ay ku dhiiran laayihiin in ay banaanka soo dhigaan dhanka kale hogaamiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha kiiska badda iyo go'aanka ee maxkamadda ICJ dib ugu dhigtay dhageysiga dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuu naqdiyay qaabkii uu maalin ka hor uga hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Salaad Cali Jeele ayaa sheegay in ICJ aysan Soomaaliya waxba ka weydiinaynin go'aankeeda isla markaana ay ku qasbaneed inay aqbasho dalabka Kenya maadaama sida uu sheegay ay ku wargelisay in aysan diyaar u ahayn soo jira awgood shalay waxa arrinta badda ka hadlay Xasan Sheekh Maxamuud hore Xasan Sheekh Maxamuud heshiiskiisa afgaradka ah ayuu soo nooleeyay markii uu dhinac u dhaqaajin waayay ayuu go'aankii baarlamaanka awgiisa waxa qasab noqotay amaba Ilaahay waafajiyay in markii dambe uu maxkamadda caalamiga geeyo taasna waxay ahayd shaqadii laga rabay qof mas'uul ah oo Soomaaliyeed ayuu yiri Salaad Cali Jeele isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yiri shalay Xasan Sheekh hadalkiisa waan fiirsanayay cid uu la hadlayana waan garan waayay maxaa yeelay haddii dib loo dhigo oo corona saweeyay inuu isaga iclaamka tago niijab ku rido ummadda Soomaaliyeed waxaad moodaa dad kale inuu la hadlayo kolba Soomaali lama hadlaynin siyaasiga Salaad Cali Jeele ayaa sidoo kale sheegay in Xasan Sheekh uu u muuqdo nin loolan siyaasadeed ku galaya arrinta badda Soomaaliya ninka wax ka soo dhicinaya oo garab taagan waa loo wada baahan yahay laakiin in Xasan Sheekh meeshaasi loolan ka raadiyo oo dhaha 4 sano ka hor meeshii aan ugu tagnay ayay joogtaa mana joogto oo waxay gacanta u gashay maxkamadda caalamiga markii aan laga afmishaareynin shacabka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan gacan amaan ah inay ku jirto hantidooda ayuu yiri Salaad Cali Jeele Salaad Cali Jeele ayaa la arkaa kaliya markii ay hadlaan madaxweynayaashii hore asagoona mikrofon u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale ciidamada booliska Soomaaliya ayaa caawa soo xiray agaasimaha hay'adda gaadiidka gurmadka degdega ah ee Aamin Ambulance Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan ciidamada ayaa afurkii kadib Cabdulqaadir Cabdiraxmaan ka soo xiray baar lagu magacaabo Spaghetti House oo ku yaala agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho waxayna la aadeen dhanka xarunta dambi baarista booliska CID-da warqad ka soo baxday xafiiska xir ilaaliyaha guud ee qaranka oo ay heshay shabakadda sirta media ayaa lagu amray taliska hay'adda dambi baarista booliska Soomaaliya ee CID-da soo qabashada Cabdulqaadir Cabdiraxmaan madaxa hay'adda Aamin Ambulance warqadda ayaa lagu sheegay in Cabdulqaadir madaxa Aamin Ambulance ay cabasho ka soo gudbiyeen laba nin oo lagu kala magacaabo Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Barre Cismaan Xuseen kuwaas oo qaab forex ah uu lacag uga qaatay taasoo cadadkeeda dhan yahay 214,000 oo doolarka Mareykanka waxaa la farayaa taliska qaybta dambi baarista ee CID-da in uu baaris ku sameeyo cabashada raggaasi natiijada ka soo baxdana uu ku soo celiyo xafiiska xir ilaaliyaha guud ee qaranka si loo waafajiyo sharciga ayaa lagu yiri warqadda guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda sirta media wixii warar dheeraad ah ama sirro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda sirta media media sirta media
واجي بريا بوحي سكر دي وحجر أرلدا